kusoo dhawaada casharkan cusub oo la xiriira jumla. magacaygu waa Mustafa Cabdullaahi Sheekh oo loo yaqaano Mustafa Qaan. casharkan waxaa idin soo diyaariyay Somali Youth Productions. haddaa xasuusataan cashar had ka hor aan sameeyey oo ahaa sidee upgrade loogu sameeyo jumla 2.5 adoo haysto oo upgrade loogu sameeyaa oo loogu bedelaa 3.2 online iyadoo online la isticmaalayo oo gudaha adoo ku dhex jiro website-kaaga dhexdiisa ku dhex jiro jumla dhexdiisa. casharkan kulay cidda daawatay cidda daawanin kulay way daawan doontaa. casharkan markuu dhamaanayay oo sii dhamaanaya casharka waxaan idin tusay in problem gudaha uu jiro error ah your host needs to disable yani hostiga ani dadka markaas website-ka adi marka qaar hostiyada qaar ku dhacan ay host kuma dhaco host kasta kuma dhaco hostiyada qaar waxaas dhibaatadana way qabaan. maxaa dhacday markaas waxay ku leeyihiin hostiga waxay u baahan yihiin lagu dhahaa inaad disable ka dhigto ama off ka dhigtid magic codes gbc-gan si versionka jumla aad isticmaalaysid oo noocan aad isticmaalaysid oo kugu shaqeeyo. 2.1 markaa isticmaasho waa caadi, laakiin 3.2 markaa isticmaasho ayaa waxaan dhaco. host kastana ma ahan, waa hostiyada qaar. waxaan markaas casharkan markaan sameeyay sheegay inaan cashar kala sameyn doono idii tus doono qofkii dhibkan sida loo xaliyo iyo qof markaas dhibkan markuu qabsado siduu u xalin lahaa. markaad google gashid aad ku qortid su-aashii lagu weydiiyey because ani waxaan galay back endiga mowqaca ayaan galay oo waxa galay oo control panelka ku laabana sug. waa kana wuxuu leeyahay hostigaaga waxay u baahan yihiin inaad off ka dhigto ama disable ka dhigto magic codescan gbc-ga to run si u shaqeeya ama u cararo saa doonto this version of jumla. waxaan tagaynaa system information-kan php-gaas saana kusoo baxa php-ga tag. markaan aan xalino waxaan way ka baxayaa meesha disable ama off markaan ka dhigno waxaan way ka baxayaan errorkan wuuna dhaafayaa. meeshaan ay ku qoran tahay magic codeskana onward off ay isku bedeli doontaa. xasuusnaada ama xasuus yeesha file uploads iyo register global ee u dhexaysaa magic codeska meeshaan onward hadhow off ay isku bedeli doontaa markaan cilada ka saarno. okay, markaad tagno matalan google haddaa ku qorto wixii markaas aniga problemkana haystay kan dhan ayaa soo koobiyey koobi ayaan ku dhahay. waxaan tagay google waan ku qoray baasta ayaan dhahay. website badan jiro problem dad badan ayuu haystaa. wax dhan arkaysid waa website badan oo sharxayo oo dad badan su'aalaad weydiinayo. waxaa ku dhufanaysaa kan koowaad oo ah docs jumla.org website jumla naftarkeeda waa website-keeda inuu yahay umaleynaa naftarkiisa waaye. waan galaynaa inta ku qoran tahay website-kan jumla la umaleynaa. waa kana how to turn off sidee loo damiyaa ama disable loogu dhigaa magic codes gbc for jumla 3. ma arkaysaa marka problemka wuxuu ku jira jumla 3 waa aduu jumla 2.5 problemka badanaa ma imaado. marka waxaa lagu leeyahay stepskana maraysaa haddii uu kuu shaqeeyo waa soo soco stepskana maraysaa ama kana maraysaa aday kugu xirantahay kaa marto. dadka qaar waxay sameeyaan waxay kariyadaan file oo php.ini la dhahayo ama waxay sameynayaan mid ah php5 oo extensionkiisa yahay ini. marka badanaa waxaan kulay website-ka hostigaaga markaa gashid public html serverka gudaha control panel-kaaga filashan badan ay ku jiraan kasoo deji kartaa dib ugu qori kartaa. waxaa la rabaa inaad ku qortid magic/code/gbc equal off. marka waxaan dhan waa caawinaad. marka midka saxda aan ii shaqeeyey had meeshaan waxaa ku qoran .hdxs for some hosts. qaar waxay hostiyada qaarna saan ay ku xalismayaan ku dhooyin. marka maxaa la sameeyaa marka for some hosts serverada qaar waxaa lagu daraa fail waxay leeyihiin oo noocan ah. failkaas wuxuu ku jiraa rootka site-kaaga. for example ahaan website-ka markaa gashid magacaaga gashid control panel ka gashid public html markaa gashid folderkana fail ku jiro fail folder aan dhihine failkaas waxaa la rabaa inaad ku qortid qoraalkan oo ah php/flag magic /goty/gbc
go to slash gbc of waxaana ku qoraysaa okay okay kolley idig sii fiiriya ani linki waa idiin soo diri doonaa ama descriptionka idiin soo dhigi doonaa ana marka si failkan ay sheegayaan root ku jirsan aan u helo waxaan ku khasbanaya inaan isticmaalo failzilla markaan failzilla isticmaalo aan soo galo saalka ka aragtaanba meeshaan way xiran tahay meeshaan ku dhufana waa soo degaa waxaa imaanaa public html kana imaana meesha sida mowqac ku arkeyna wuxuu dhahay waxaa gashaa uu dhahay failkan wuxuu ku jiraa uu dhahay isheeg wuxuu ku jiraa public html-ka awe public html kan galaynaa kadib failkaasaan noo soo bixi doona right click kusii waxaad tiraahdaa enter directory waan galnay failka waa kana okay failkan iyo failkan way kala duwan yihiin kan waa text caadi kii aan naqiinin waa aan naqiinay fahmaysiin kanna waa htxs haddii waxtaa failka meesha ku jirin adaa createayo waxaa isticmaashaa notepad plus isticmaal ama dreamweaver isticmaal ama waxaad doonto isticmaal hadda waan haysaan soo diyaara right click kusii download sidaa aragta failka sidaa aragtaan waa fail size sidaa aragtaan waa 0 waxba kuma jiro everywhere marka right click download ku dhahdid wuu kusoo degaa marka meesha download is waa inuu ku save garaysan yahay folder qaar kamid ah furaysaa right click kusinaysaa download meesha ayuu kusoo degaa okay marka folderkan aan furaa folderkan wuxuu i yaalaa desktopka ayuu i yaalaa naga tirkan xeer folderka waa kana okay okay waxaa naga tirba delete yes okay waa kana failka marka failka saartaa ma furmaayo haddaa open edit saanu kusoo qoraa because extension la yaqaana ma ahan wordpad ma ahan word ma ahan powerpoint ma ahan text wuxuu yaala ma yaqaana marka fail san iska yawa marka si aa u furno waxaa ku furi kartaa notepad plus oo ku furi kartaa waxaa ku furi kartaa text waxaa ku furi kartaa dreamweaver waxaa doonto ku fur marka qoraalka ku jira xataa waa idin tusaa okaadi soo qaad kusii daa qoraalku ma jiro kan website-ka soo dejinay marka qoraalkan ku daraynaa marka qoraalka carabni aan ku daraynaa waxaan ku laabanaynaa website-ka dati oo leeyahay qoraalka isticmaala waxaan soo koobiyeynaa qoraalkana soo koobiyeynaa oo ah php flag magic otis gbc of soo koobiyey koobne meeshii imaaw kan si wax aan ugu darno waxaan u baahanahay inaan furno waxaan ku furay notepad bastiga ku dhahay close dheh yes dheh waa kan haddaa furno hadda qoraalkana noogu jiro xasuusnaada marka kan refresh dheh saa aragta meesha waxaa ku qoran file size 29 ku qoran fail tapeka waxaa la hdxs la dhahaa xilliga la sameyna waa kana meeshan saa aragtaan kan waxaa ku qoran file sizekiisa ever because wax kuma jiro waa soo dejinay anagaa qoraalka adaata bast aan ku dhahnay dib website ugu celinaya marka waxaa leeyahay upload wuxuu leeyahay failkan waa lasoo helay waa jiraa waxa waaye sugu marka ha qaato upload shaqo wada hadda because markuu galo waxaan iska tiraynaa kheyray waxaan iska tiraynaa dukaadiya okay remove all selected okay weli shaqo wada because markuu galo waa ogahay markuu galo wuxuu dhahaa weli waa ku xirmaya website-ka ayuu ku xirmaya hostiga markuu qaato wuxuu dhahaa failkan hore u jiray uu qaataa hadda waa kana meeshan 29 waay marka qaar waxa dhacdo upload markaad tiraahdo wuxuu ku dhahaa calaamadu kusoo tuuraa ana calaamada hore ugu soo tuuro oo keen dhahay wuxuu ku dhahaa failkan hore meesha ugu jiray ma waxa rabta inaad ku celisid waxaa leedahay overview check sar override dib ugu qordhe okay dhe website-ka uu galaa marka uu ku qaadan had saartan fail size-kan dad ibra ayuu ahaa hadda 29 waay okay mowqicina ku laabanayna marka wixii ma ka baxeen mise ma ka bixin waa fiirinayna marka waxaa tagayna control panel-ka way ka baxday calaamadii guduudad way ka baxday si ku fahmayna okay sis information ka tagayna waxaana arkusin waa update waa iska dakaas waxaa tagayna php setting hadaad waxaa idin dhahay waxa xasuusataan fail upload-ka meesha ku qoran yahay iyo register-kan waxa u dhaxay magic codes waa on off marka ka dhigno aan xalino off ay noqonaysaa calaamadii guduud way baxaysaa calaamadii guduud way baxday magic codes-ka ee naga rabeen inaad disable ka dhigno
waa kana off ayaan ka dhignay waxaan ku sameynay khalaas hostigiina galnay public html-kan galnay waxaan soo dejinay failkan notepad balasaan ku furina ama dreamweaver ama ay editor ku fur kadib qoraalka ku qor save garee dib usadka ugu soo celi wixiina way ka baxeen okay waxaan isku dayaynaa usadka inaan ka baxna isku dayaynaa dibaa ugu soo laabanaa dibaan soo galaa usadkayga hoostag waan furaynaa waa kan xataa meesha markaan soo gelin wuxuu soo qoraa ma leh mujidin waa nadiif haddii u baad wuxuu update weydiinaya kana updatekan waxa waaye waxaa update waxaan aan samayn karo waaye oo aan samayn doonaa update oo hadda macnaha update-kii wuxuu ahaa ka isticmaalaya wuxuu ahaa kii hore ugu jiray 3.2 ayuu ahaa waxaa soo baxay hadda ama update yar oo kusoo darsamay kusoo darsamay ma soo bixin update waxyaalaha ku sameeyeen point 3gan linkigana waa kana okay right files usb may directly ugu shub install updates okay soo dejinaysa ku shubay wax kale waqti yar oo qaadana على كل حال 10 كان وحنا 10 ay ku soo sidee loo sameeyaa update ayuuda sidee loo xaliyaa markii problemkan ah sida off loogu dhiga magic code scan marka isticmaal jumla tree okay 10 kan waxa idin soo diyaariyay Somali Youth Productions anigoo ah Mustafa Cabdullaahi Sheekh Aloy Khan Mustafa Khan waa idin la socodsiinay insha Allah waxay su'aalaha qabtaan oo web design ku quseeya ama video editor quseeyo waxay rabaan ahaadaan insha Allah nala soo socodsiiya ama soo weydiiya insha Allah waa 10 ay idin sameyn doonaa aan website-kayga waa kana somaliyouth.tv.com waaye wuxuu noqon doonaa mid IT ku shaqeeya insha Allah shaqaana ku socoto saa aragtaa markaa website soo gashid wuxuu ku weydiinaa username password waxa qofkii super admin gali kara bas iyo qofkii la siiyay magac iyo password libsaas gali karo marka hadana shaqada ku wada ka soo sakin website-kii available inuu noqdo marabo shaqada ku socoto markuu insha Allah shaqadan dhameeno website fiican u dhisno insha Allah ana online ka dhigi doono oo waxaad u shaqeyn doonaa oo waxaan waa laga qaadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah maxaa la dhahay youtube-keygana waa kana waxaa samayn kartaan waxaa samaysaan youtube.com/ haddii aragto userkan waa iska dhaafi kartaan raali ahaada waxaa igu shidmay okay waxaa samayn kartaan youtube waa kor hoos u qaadanaa waxaan iska baabi'iyaa okay waxaan naga baabi'iyaa okay waxaa samaysaan youtube.com/super somali talk ku qora caadi u maanaysaan channelkayga insha Allah casharada ku jiro daawada haddii markaas cashar codsanaysaan insha Allah noo soo dira warqad haddii aad subscribe ku samaysaan channelkeena okay insha Allah waa anigoo ah mar labaad Mustafa Khan oo idinkaga tagay sida ay nabadgeliyo باي باي مع السلامة